waxa ilaahay agtiisa wax ka waa maxay ilaahay wuxuu eegaa ila quluubikum wa a'maalikum waxa quluubtiina ku jira iyo acmaashin سيدرادد حديث النبي يقول لها التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا انتو لابتي ستلمامي النبي عليه الصلاة والسلام صدح جير أيوح إلى الله كعبسه هلكو كتشره الله كعبسه هلكو كتشره إذن قلبك إيعاف ما قبكيس أما بكان كيس أما دمشديس ووحيابا وقوم مهمسا وقفك مسلم كيوبا هي إنه إن بدن إيغو warmakuwa qalbigoodu dhintaad ka mid mise kuwa bukaabaad ka mid mise kuwa caafimaad qaba waa saddex darajo oo kala durugsan caafimaad qabka qalbiga waxa ku xidhan salaax ama wanaaga adduuniya aakhiraba fasaadka uu qalbigu fasaadana waxa ku xidhan aakhiriya adduunba fasaadkeeda waayo qalbiga waxyaabaha fasaadiya gaalnima ka mid ah riyaa iyo sumca iyo istusbaa ka mid ah maxaan ku idhaahdaa ismaqashiis baa ka mid ah kibir iyo isla weyni baa ka mid ah cujbi baa ka waxyaabaha bulshada diidaba inay bulsho noqotaa waa amraad alquluub bulshadu hadday ka caafimaad qabto qalbiga waa bulsho nadiifa waa mujtamac jiri kara nolosha caadiga adduunyo haddaanu se quluubta ka caafimaad qabin waa bulsho cafina وبلشة أنشري كريم قلوبته وبكوتا وحنا بكيسية قال لماذا يا كفرية وحاب بكيسية معاصدة وحاب بكيسية سيدي ذنوب تقلبي قدك تأكل ووينتي ومثلا نحن بهنا أعمال القلوب التي المامو وحنا وحلقنا ولا يا قلبك إلهي الذكر يس يا حسكيس قرآن كأخرسكيس أوراد الله يمات كودا صلاة هي عبادات هي واجبات كاللغو فريسة مين تودا وحاسي قلبك إنه ليا وحنا والله صافية على قلبك أوه الريو الرياضة هي السمعة رياو وعمل قلبية حديث النبي واحد المام صدق النار تبى الله وجهر شدة يا أهل التوحيد كأني كواسيين صدح دي النار توجه الري أول من تصعر بهم النار بالنبي صدح توجه الري النار تلوج شدة وصدح قلبك كبو قاضي حيث ماين أعمال صالحة لكن قصدك إرادة عدة أعماش صالحة وحكجر بين بقلدن طيب أوام حي وحو نبي المام عليه الصلاة والسلام كوه الريان نار تلوج شدة ومد شيخها وقرآن أخرس بدنا ودي دبتنا وحلا ويدا هذا وحلو برنا معاها محط سمايس إلى هو نخري ويدا هذا هبني أنا الليل وأطراف النهار بان قرآن كآخرني وحلا يدي واحد وآخرنيس إن لو ويدا هذا هبل وعالم يوا قارئ يوا نوحي قارنا دينتي نواتي لو يدي ضدك كوكو يدا هذا هبل ونعد معانيو وشيخيو ووداد الله قد برضو فنيو أنت أنا هرا لو يدي خلاص عند الله وحبك ما حجام بلا لي مركه naarta gal baa la yiraahdaa intaas aad walba doonaysa intiina heshay mid baa yimaada yiraahdaa waan jihaad ilaahu u dartaaman u dagaalamay waa ka waxa la yiraahdaa waxaad rabtaa in lagu yiraahdo hebel waa geesi iyo xagu ka xiga nin baa ka xiga iyo dhankiisa laga soo dhici maayo intaas aad rabtay intiina waa lagu yiri baa rabbi yiraahdaa aadna naarta gal mid wax bixiyayna isna waxa la yiraahdaa waxaad rabtoon in lagu yiraahdo hebel waa nin faxal oo gacan furan deyntiina lagu yiri isna naarta gal idan waa acmaal alqulub waxa amalka ku kaaga dhiga wax qiimo leh haduu amalka qalbigu xumaado oo amar riyaa galo ismaqashin ama uu galo iscajabin iyo isafuufid iyo hal lagu sheego يميانا هبل هين ضده هذا يدق مقعاقه هروش يشيقي وياه أنا هو الله مدون وحبك هو هل بعد ولا سدي سوالد وشيقي وأنا عد لك العين قلوبت محان نظيفية عافي ماضية إلهي كتاب كيسوين وقشيقه وحلني قد جاءتكم موعظة من ربكم
وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين حق الربي وحيدين كتمي با إلهي لي موعدة وانو إيه وشفاء لما في الصدور لابتو حيكو عافماده لابتا محال لغا عافمادين ايا واح لغا عافمادين ايا الجهل إيه وحو دبدا قوته oo shirki iyo gaalnimo iyo wixii la mid ah waxa laga caafimaadinaya shahwaatu nafsiya wixii la mid ah waxa laga caafimaadinaya shubuhaat wa shukuk waxa laga caafimaadinaya shahwaatu nafs waxa soo dhan waxa nadiifiye ee maydha ilaahay wuxuu leeyahay wa shifaa'un lima fi sudur laabtu caafimaadu yahay nolosha dhan buu caafimaadu yahay laakiin waxa la inoo tilmaamaya laabe haday caafimaado nolosha inta kalena inay caafimaadi doonto وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم إلهي وحينا تلماما يا قلوبته إني عافماده إن حمها لغا ساري كرو وحكا ساري عافماديانا إنه يهي رب سبحانه وتعالى كتاب كيس waxaynu u baahannahay inaynu dib quluubteenna u fatashino quluubteenna inaynu dib u fatashino baadhno oo aynu nadiifinno daahir yeelno ka daahir yeelna xaasidnimo iyo xaqdi iyo xumaan iyo xan iyo wixii la mid oo dhan ka daahir yeelno ka daahir yeelna waxa laaliya waxa mubtilaatul acmaal ah waxa camalka buriya adigoo shaqaynaya haddana inay shaqadaadu wax ka soo qaad yeelan weydo adoo salaad tukanaya salaadaadu nafci yeelan weydo waa mid subxaanallah marka ayuha alaxibba waxaynu leenahay quluubtu waa meel u baahan in ihtimaam gaara la siiyo oo aad xisaabtanto oo aad tidhaahdo qalbigaagu intay xaasidnimo ku jirtaa intay qilli ku jirtaa intay colaad ku jirtaa intuu nadiif yahay intuu daahir yahay intood rabbiga weynaynaysa oo aan wax kale oo dhibi ku jirin kaasaynu u baahanay inaynu samayno sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin